This is your Fox News report. A search and rescue operation now underway after an American fighter jet went down in Iran. One pilot rescued, but another crew member is still. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا دمان تسول هذا maxaa ka cusub bariga dhexe maanta waxaa ka taagan arrin aad u xasaasiya. Iiraan ayaa waxay soo riday 6 diyaaradood uu leeyahay Mareykanka. Diyaaradahaas waa kuwa aad u awood badan waxayna la eegatay gantaalaha si toos ah u soo riday diyaaradihiin. waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaradaha raggii wada beeladii wada ama raggii wada diyaaradda ay qaybna ay iska tuureen diyaaradda qaybna ay gacanta aan lagu hayn. diyaaradaha ay la soo riday waxa la sheegay in qaybna ay gacanta aan lagu hayn. diyaaradaha ay la soo riday waxa la sheegay in yihiin diyaaradaha aad ugu awood badan kuwaas oo magacooda loo yaqaan diyaarad kamid ah ay ahaayeen F-15 waana diyaaradaha rabay in ay ku gurmadaan iyaga ay gantaalo lagu riday. diyaaradda kalena la sheegay inay tahay A-10 waa diyaaradaha aadka u awood badan oo Mareykanka uu ku fahmi jiray kuwaas uu sheegi jiray oo leewana baqi jiray mar walba uu dhihi jiray diyaaradani waa diyaarad aad u awood badan laakiin hadalka waxa beeniyay Iiraaniyiinta raggii diyaaradaha la soo dhacay waxay isku dayeen in ay diyaaradihi ay baadgooma meesha ay ku soo dhaceen si ay gacanta ugu dhigaan laakiin Trump asagoo waxa uu bartiisa ku soo qoray Twitter-ka inuu sheegayo in ragga ay u doorey rag askari ah si ay u soo badbaadiyaan ragga ka maqan si degdeg ah inta aysan gacanta cadawga ay u galin Iiraaniyiinta ayagana bartooda ay wax ka raadinayaan si ay gacanta ugu soo dhigaan. teeda kale waxa warka la yaab kale uu yahay Mareykanka uu soo diray raggii diyaaradda la dhacay inuu badbaadiyo helicoptero oo loo yaqaano GG-6Y waa helicoptero wada askar kuwaas oo saaran yihiin qoryaha qotada dheer ayaa ku duuliya hawo hoose. sidee ay macquul u noqon kartaa in ayadoo bariga dhexe uu ka soo dagaal helicoptero uu soo diray Mareykanka ku duulaan hawo hoose laakiin Iiraaniyiintu qayb kamid ah way soo rideen laakiin waxaan hadda sawirkan ka arkaysaa in ay helicopterada ku duuliyaan joog hoose. miyaysan macquul ahayn waa arrinta aanan caqliga gelin sabab ee Iiraaniyiintu ayagoo soo ridaya diyaarado hawada sare maraya sidee bay helicopter ku duulaysaa joog hoose ay Iiraaniyiintu u soo ridi waayeen. teeda kale shacabka Iiraaniyiintu miyaysan haysan hub ay ku soo ridaan diyaaradan helicopterka ah oo baadgoobis ragga cadawga diyaaradda la dhacay. waa warka sheegay Iiraaniyiintu in ay laftigooda ay duqeeyeen laakiin aysan waxba ka soo ridin shacabku maadaama aysan hub aad u awood badan. waxaa kaloo warka ay sheegaya Trump inuu yaaban yahay sida uu filayay ay arrintu ku noqon weydo waayo muuse filan dagaalku inuu intaa qoto dheeraanayo inta uu gaarayo laakiin Iiraaniyiintu ilaa hadda wax walba lagu sameeyo iyagu waxay ka sameeyeen jawaab celin waliba jawaab celinta ay sameeyeen waa mid aad u awood badan mana naxaya ma aha sababtoo ah waxaad ku sameeyay jibaal bay kugu sameeyaan. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray hadda la baxana saliida ama wuxuu ka wada oilka laakiin waa kaftamay ninka waa nin aad u kaftamo badan laakiin Iiraaniyiintu rag kaftamaya ma aha waa rag ay ka go'an tahay in ay dagaalkan ay ku guuleystaan lagana guuleysan waayo waa sababtoo ah ilaa hadda marinka Hormuz lama furin sida kina aad u shaqeeyo way adduunyadu way yaaban tahay. waxa taas ka sii daran Iiraaniyiintu ayagu dhalinyaro kamid ah Iiraaniyiinta oo soo galay live kuwaas oo live-ka laftigiisa ku iibinaya diyaaradihii drone-iskii Mareykanka uu ka soo dhacay ayaa ay beec ku iibinayaan. waa arrinta la yaabka leh ay waxay ka soo galeen barta maxaa ahay loo yaqaan aalada Twitter-ka aan dhihinay TikTok-ga ayagoo live soo furtay oo kuna beecinaya diyaarad Mareykanku ma sameyn doonaa falcelin toos ah oo ama markar wal celin doonaa maxaa idinku aad ka leeyihiin dagaalka bariga dhexe ka socda bartiina la soo wadaaga community-ga ah ma sii socon doonaa dagaalka oo barta iyo wax dhacdooyin kale ma la kulmi doonaa mise bartaas ay ku joogsami doonaa. Trump laakiin waxa uu sheegayaa inuu dagaalkan uu joojin doono laakiin ma qeexayo hadalka toos uma dhahay dagaalka waa joojinayaa wuxuu soo marmarayaa meelo hoose laakiin ilaa hadda muuse qeexin inuu dagaalkan joojin doono. dagaalkan waxa khasaaro ku qaba Mareykanka ilaa hadda lama sheegi karo khasaare aad u weyn soo wajahay Iran.
sababtoo ah Iiraaniyiintu ayagu mar walba difaac uga jiraan in ay mataqaana ay dagaalkan ayagu lagana guuleysan garab buuxana ay haystaan qoto haday noqoto Ruushka kuwaas oo saacidaya marka xagee ugu dagaalkan ma sii socon doona mise waa istaagi doona maalmaha soo socda dagaalkan waxa la filayo inuu maalmo yar ku dhamaado